qodobada kale ee wararka dibadda aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah Mr. Vladimir Putin ayaa markii saddexaad loo doortay xilka madaxweynenimada ee waddanka adduunka ugu dhulka ballaaran ee Ruushka. Mr. Putin ayaa 4 sano ee la soo dhaafay ahaa ra'iisul wasaaraha waddankiisa sanadkii 2000 ay ahayd markii ugu horeysay ee loo doortay xilka madaxweynenimada Ruushka. Xaflad aad u ballaaran ayaa lagu qabtay guriga loogu taliyo waddankaasi ee loo yaqaano Kremlinki subaxnimadii saakay waxaana lagu dhaariyay madaxweynaha cusub. Putin ayaa ku dhaartay dastuurka waddankiisa asagoo gacanta saaray nuqulka dastuurka. waxaa aad loo adkeeyay amniga guud ee waddanka gaar ahaan caasimadda Moscow. Axadii shalay ay ahayd markii ay gacantiisu la tageen mudaharaadayaal ka soo horjeeda madaxweyne Putin iyo ciidamada booliska dalkaasi Ruushka, iyadoo oo xabsiga loo taxaabay dad badan oo gaaraya 400 oo ruux. waxaana la sheegay in ciidamada booliska ay garaaceen qaar ka tirsan dibadbaxayaasha. si kastaba ahaataba Mr. Putin ayaa xilka saaka loo dhaariyahayn doono ilaa sanadka 2018 waxayna dadka siyaasadda Ruushka daneey rumaysan yihiin in doorashada madaxweynenimo ee Vladimir Putin oo horey u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada dalka Ruushka ay ahayd arrin horey loo soo qorsheeyay lana filayay inuu ku guuleysanayo Mr. Putin. dhanka kale dalka Faransa, hogaamiyaha xisbiga hanti-wadaagga dalka Faransa Francisco Hollande ayaa ku guuleystay doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi kadib markii ay ku loolameen isaga iyo madaxweynaha xilka ka dagayo Nicolas Sarkozy. wareegga labaad waxa uu helay 52% oo cod ah sida ay muujiyeen natiijooyinka hordhaca ah oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka, halka Sarkozy uu helay codad dhan 48% isagoo ka socday xisbiga midigta dhexe. Mr. Hollande waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay oo ka socday xisbiga Socialistiga ah tan iyo sanadkii 1995. dadka wax taxliiliya ayaa sheegaya in doorashooyinka waxa hareereeyay oo arrinta qalaasaha lacagta euro ee Eurozone. Mr. Hollande waxa uu wacd ku maray inuu ka shaqeyn doono sii socodsiinta heshiiska lagu badbaadinayo deymaha dalalka midowga Yurub. Hollande waxa uu rabaa inuu kor u qaado canshuuraha shirkadaha waaweyn iyo dadka sanadkiiba ay soo gasho lacag ka badan 1 milyan oo euro. sidoo kale waxa uu kor u qaadayaa mushaarka shaqaalaha uu dakhligooda hooseeyo. Mr. Sarkozy oo ahaa ninka lagu guuleystay waxa uu talada la wareegay sanadkii 2007. waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay oo ku dhaca tartanka doorashada isagoo hogaaminayo dalka tan iyo sanadkii 1958. madaxweynaha cusub waxaa la rajeynayaa in la caleemo saaro dhamaadka bishan, halka doorashooyinka baarlamaanka ay dhici doonaan bisha Juun ee fooda inagu soo hayso. daawadayaal waxaa halkaa inooga eg wixii war ahaa oo caalamka inaga soo gaaray. halkaad warkaasi kala socoteen waa TV-ga caalamiga Soomaalisad xaruntiisa Bayer ee dalka Jarmalka. warkaan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdifataax Xuseen Gole. intaan warkaan warka xigaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.